inkastoo ay qoyeen oo xaaladdu qasantay haddana dhicitaankaas wuxuu sababay inay qoslaan halkaasna waxaa ka bilowday isfaham iyo jacayl dhab ah oo dhex maray labada qof iyo labada eyba jacaylkoodii wuxuu ku dhammaaday guur farxad leh waxay degeen guri yar oo qurux badan halkaas oo Roger uu muusiga ku sameeyo Anitana ay dharka ku dislayso waxa uu adeegta haweeney waayeel ah oo Nani la yiraahdo noloshooduna waa mid degan oo macaan laakiin farxadda waxaa soo dhex galay cabsi markii la ogaaday in eeyadii Berdita ay uur leedahay waxaa guriga soo gashay haweeneyda sharwadayaasha ah ee la yiraahdo Cruella waxay aad u danaynaysaa inay hesho eeyaha yaryar si ay dhogortooda uga samaysato jaakadaha qaaliga ah taasoo argagax ku ah qoyska habeen roobab wata oo onkod leh ayaa dhalashadii bilaabatay Roger iyo Bongo aad bay u walwalsanayeen intii ay sugayeen Nani ayaa farxad la soo orday oo ku dhawaaqday tirada ugu dambeyntii waa 15 eey oo yaryar Bongo farxad darteed ayuu miyir beelay Cruella ayaa mar kale soo laabatay iyadoo wadata jeeg lacag ah waxayna rabtaa inay wada iibsato dhammaan eeyaha markan Roger wuxuu muujiyay geesinimo wuxuuna si cad ugu sheegay inaysan iib ahayn Cruella xanaaq ayay la waalatay wayna caytamaysaa laakiin qoysku go'aankooda ayay ku adkaysteen markii waqti la joogay oo eeyihii yaryaraa xoogaa koreen Cruella waxay beddeshay xeeladeeda waxay soo kiraysatay 2 tuug oo xirfadlayaal ah iyagoo ka faa'iidaysanaya maqnaanshaha qoyska tuugtu waxay iska dhigeen shaqaalaha korontada waxayna xoog ku galeen guriga iyagoo qafaashay dhammaan 15 eey ee yaryaraa